Asalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xiran channelka Faa'iido Media. Dhammaantiin waa idin salaamay. Haddaad channelka cusubtaa insha Allah waxaan idinku soo dhaweynaynaa subscribe-ta, share-ta, like-ta aniga ilaawin insha Allah. Marka maanta insha Allah waxaanu ka hadli doonaa sheekaas ku saabsan guusha. Waa sheekadii guusha Ramesh Babu ninka la dhaho sheekadiisii guusha ahayd. Ninka horta Ramesh la dhaho waa nin reer Hindiya oo milyaneer ah kaasoo leh shirkad kireysa baabuurta ay baabuurtiisu gaadhayaan ilaa 300 oo gaadhi. Haddii aanad fikri aaminsanaan fiican ka haysan guusha, waxaa laga yaabaa inaad u maleyso in Ramesh uu ahaa qof nasiib leh ama qof ay caawiyeen qoyskiisu inuu aasaso ganacsiga ah. balse Ramesh wuxuu tusaale sax ah ku tusayaa sida dhiiranaanta iyo go'aanka ay ugu badiyaan wax kasta oo kale. Ramesh wuxuu ka shaqayn jiray meel ra'iisul ama timo jira ah kaasoo adeerkii lahaa, wuxuuna maalintii dhan ku shaqayn jiray 5 rubi oo waqtigaas ahayd lacag aad u yar. Ramesh wuxuu tagi jiray ra'iislaha aroortii, waxbarashada uu college ka dhigan jirayna wuxuu tagi jiray casarkii. Intaa kadib wuxuu noqon jiray ra'iislaha, wuxuuna ka shaqayn jiray ilaa 1 habeenimo. Ramesh wuxuu 3 waqti wax la cuno wax cuni jiray hal waqti oo kaliya sida uu noolaado. Sababtoo ah muu heli jirin lacag ku filan oo uu ku iibsado cunto kale. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Ramesh isku darka lacagtii uu kaysan jiray iyo lacag uu soo amaahdayba qaaday oo uu ku iibsaday gaadhi. Ramesh wuxuu bilaabay inuu kireeyo baabuur si uu lacag uga sameeyo oo ay lacag uga soo gasho. Ninkii Ramesh ahaa wax yar kadib wuxuu yeeshay 6 gaadhi oo uu kireeyo, waxaana wax badan xiriir la yeeshay xagga ganacsiga kireynta. 2004 wuxuu bilaabay inuu iibsado gaadhi nooca lagu raaxaysto ah oo uu kireeyo dadka kireeyo. Waqtiga dadku ma aysan gaadhi nooca lagu raaxaysto ah oo uu kireeyo dadka. Waqtiga dadku ma aysan kireysan jirin gawaarida lagu raaxaysto. Qof kastana wuxuu sheegay inuu qalad weyn sameeyay. Ramesh wuxuu u cadeeyay dadkii inuu isagu saxsanaa, ganacsigiisana wuu sii koray. Markuu waqtigu ahaa 2011 wuxuu bilaabay inuu ku soo daro ganacsigiisa oo uu sii iibsado gawaadhi loo yaqaan Rolls Royce. Mar labaad haddii waxay u sheegeen inuu qalad aad u weyn sameynayo. Ramesh ninka la dhaho mar labaad wuu saxsanaa, wuxuuna noqday milyaneer. Gawaadhidiisuna waxay gaadheen in ka badan 300 oo baabuur. noloshiisana gebi ahaanba way isbedeshay. Guushan aadka u ballaaran qiimaha badan ninka Ramesh hal heer ku soo gaadhay, waxaan ka baran karnaa casharo fara badan. Horta ka baran kartaa waxaan ka baran kartaa noloshu way adag tahay horta. Sidaa ogeedid maxaa kula gudboon adiga? Haddaba ma u malaynaysaa inaad ganacsi bilaabi karin sababtoo wax lacag ma haysatid ama sababtoo wax waqti ma haysatid? Ramesh wuxuu wax baranayay maalinta oo dhan. Maalintii wuxuu helayay lacag 5 rubi ah. Waxaad haysataa wax badan inta uu haystay Ramesh. Haddii aad u malaynayso inay nolosha adag tahay, waxaad ogaataa in dadkii noloshoodu ka sii xumayd ay sameeyeen oo gaadheen guul. Qodobka labaad ka baran karno nolosha waxaa ka mid ah badanaa waxaa jiri doona qof ku niyad jabiya oo hoos ku dhiga ka kor intii aan qaadin talaabada labaad oo ugu muhiimsan mihnadiisa. Dadku waxay u sheegeen inuu ku socdo jiho qaldan, balse muu dhageysan dadka. Tanna waa waxa saxda ah ee ay dadka guusha gaadha sameeyaan. Waxay raacaan riyooyinkooda iyo waxa ay gaar isleeyihiin, xataa hadday dad badan isku dayayaan inay ka joojiyaan. Qodobka saddexaad aan ka baran karno waxaa ka mid ah sheekadan guusha dib u dhacyo aad u xun. Wadadii guusha uu maray Ramesh may ahayn mid toosan oo ubaxyo iyo roog cas loo dhigay.
waraysi lala yeeshay mar ayaa waxa uu sheegay inuu wajahay dhib iyo dhacyo badan. Waxa aad dhab ahaan ku wajihi doona dhibdhacyadaas. Waxaad ogaataa oo keliya in dib u dhacyadu yihiin wax ka mid ah nolosha ganacsadaha. Qodobka afraad ka faa'iideyno sheekadan guusha waa dadka qaar waxay sameeyaan cudurdaaro dadka kalena hore ayay ka qabtaan. Haddii Ramesh aanu weli guuleysan lahayn oo uu sababeyn lahaa guuldarradiisa cudurdaaradaas waxay noqon lahayn qaar macquul u ah dad badan. Haddaba waxaas oo dhan kadib muxuu sameyn karaa qof ku nool xaalad sidan u adag si uu horumariyo noloshiisa. Ramesh wuxuu caddeeyay in go'aan qaadashada iyo shaqada adag ay u beddeli karaan nolol kasta dhinaca fiican ay u beddeli karaan ayuu go'aansaday. Inahaas iyo waxyaabo kale oo fara badan ayaan sheekadan ka qaadan doonaa insha Allah. Sheekada ku xigtay guusha waa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.